Simaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeyo oo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in shalay oo kaliya 1667 qof ay ka soo galeen xuduudaha Soomaaliland 16 qof oo kamidana la geliyay karantiin. sidii aan horeba idinku sheegi jiray waxa jira dad maalin walba aan isqayn gareyno oo wadanka meel kala duwan ka soo gala maadaama uu ganacsiga furan yahay marka shalay waxa la taskireeyay oo xumad laga eegay oo meelaha kala duwan wadanka ka soo galay 1667 qof oo dhammaantood markii la eegay aanay jirin qof wax calaamada ama wax xumada oo xanuunkaas ka muuqda lahaa badi dadkaasi waxay ka soo galaan dhinaca Ethiopia ama Wajaale laakiin meelaha kale meelo kala duwan ayay ka soo galaan sidaan horeba aan u sheegnay maji waxa ay inoo karantiinaysan oo karantiinka ku jira 16 qof oo ku jira karantiinka intii kale way baxday waxa kale oo iyaduna jirta inay diyaar yihiin isbitaaladii iyo meelihii ay ugu talagalay dadka haddii qof ama xaalad case oo isbitaal baada ay soo baxdo ay geyn lahayn lagu daaweyn lahaa waxa kale oo iyaduna socota wacyigelintii iyo tababarkii shaqaalaha gobol walba ka socota oo wacyigelintii ay 23 degmo dalkaba ay ka socdaan 23 degmo doorasho waxa kale oo iyaduna dhinac socota tababarkii shaqaalaha loo tababaray inay la deelgareeyaan ama ay la tacaalaan xanuunkaasi haddii uu yimaado iyo dhinaca wacyigelinta waxa kale oo aan bulshada la wadaagaynaa oo aan u sheegaynaa kalmadaheenii wacyigelinta ahaa ee aad bulshada mar walba u mari jirteen hawada maalinlaha sida maalinlaha lagu mari jirteen wacyigelintaasi waxa weeye maadaama ay xiisas xanuunkii wadanka jiraan Igeysta kale agaasime Xergeeyo waxa uu bulshada reer Soomaaliland ugu baaqay inay ilaaliyaan nadaafadda qaataan iyo amaamirta wasaaradda caafimaadka waxaan bulshooyinka kula dardaarmaynaa inay ilaaliyaan nadaafadda gaar ahaan xagga faraxalka oo ay mar walba dhaqaan gacmahooda oo ay farxashaan mar walba ay ku farxashaan biyo soconaya iyo saabuun taasi waa aad bay muhiim u tahay waayo xanuunkani waxa uu inta ugu badan uu ku fidaa qofka oo ama afkiisa taabta ama sankiisa taabta inta ugu badan saas uu ku fidaa marka waxaan lagu yaacay afka lagu xidhay sanka lagu xidhay waxa ka muhiimsan inuu qofku ilaaliyo nadaafadda oo uu dhaqo gacmihiisa mar walbana uu ilaaliyo nadaafadda kana fogaado inuu si joogto ah u taabto afkiisa iyo sankiisa waxa kale oo iyaduna muhiim ah inuu qofku ka durugsanaado meelaha lagu soo ururo oo ururka laga fogaado oo qofku haddii aanu hawl baxayn aqalkiisa iska joogo iyaduna waa arrin kale oo muhiim waxa kale oo muhiim ah oo aan dadka kula dardaarmaynaa in qofkii ama qufac leh ama calaamado durilihi uu gurigiisa joogay ilaa inta uu xanuunkaas ama durigaasi uu ka baxayo oo aqalkiisa iska joogo haddii uu qufacayana uu daboolo afkiisa iyo sankiisa waxa kale oo aan bulshada la wadaagaynaa inuu si wanaagsan imiga u bilowday oo u shaqaynayo nambarkii 92 ahaa oo la soo garaaci karo oo uu si wanaagsan u shaqaynayo tilmaamo fiicanna laga heli karo sidaa daraaddeed qofkii calaamada isku arkaa inuu soo garaaca nambarka isagoo nambarkaasi ku hagi doona calaamadaha uu leeyahay kolba dhakhtarkii lala xidhiidhsiinayo iyo wixii talo uu ka qaadanayo iyo farriimo wacyigelinina uu ka dhegaysan karo sidaa daraaddeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa bulshaweyntu inay qaataan talooyinka iyo tusaalooyinka ka soo baxaya wasaaradda horumarinta caafimaadka waa Xamse Axmed Saleeman Xamse Dabaare telefishinka caalamiga ee Star TV عاصمة Somaliland Hargeysa